maanta ayaa waxaa soo booqday xarunta Somali Community Service of Seattle, Washington, maayarka magaalada Seattle, Bruce Harrell, oo isagu ay doorasho ku soo fool leedahay isla markaana tartan adag ay isku jihi doonaan isaga iyo waliba Kati. Haddaba booqashadu ku soo booqday ma ahayn mid iyadu markaa political ama iyadu ku saabsan doorasho, waxay ahayd routiinkiisii ama wadadii caadiga ahayd oo ku soo booqan jiray community-ga Soomaalida ee magaalada Seattle, Washington. Isfariisi kadib su'aalo la isweydiiyey iyo waliba jawaabo fara badan ayay Soomaalidu halka kala kulmeen. Maayarka iyo waliba maayarka kale ee Soomaaliyeed Maxamed Cigaal oo isagu maayarka magaalada Seattle isna goobta ayuu xaadir ku ahaa. labada maayar waxay la hadleen bulshada Soomaaliyeed oo iyagu goobta fadhiyay isla markaana su'aalo qabay. Hayeeshee Bruce oo isagu ahaa ninkii isagu markaa martida gaarka noo ahaa ayaa isagu dadka si gaar ah ula hadlay, su'aalo fara badanna isagu markaa ka jawaabay. madaxa Somali Community Service of Seattle, Washington, Sahra Bashir iyo waliba howlwadeennada kale ayaa runtii gacmo furan ku soo dhaweeyay maayarka isagoo la dhacsanna waxa uu ku noqday goobtiisii shaqo. tan intaan dib dambe ku dhigi doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. waxaa maanta marti sharaf noo ah maanta noo jooga meeshaan duqa magaalada maayarkeena Bruce Harrell iyo maayarkeena kale Maxamed Cigaal oo sii taaga asagana ah. laba maayar maanta noo jooga, waxaan nasiib ku leenahay. marka alxamdulillah waan aad ugu mahadsan yihiin inay nagala soo qayb galaan qadadeena iyo seniorkeena. waan u sheegay hadaayatay barnaamijka inta maalmood uu socdo waraan waxaan u maleyn 20 sano uu socdaa. marka waxaan jecelnahay inuu Bruce Harrell maayarka aan ku soo dhaweeyno iyo Maxamed Cigaal meeshan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkaan idinku imaado. waxaana soo dhaweynayaa Mayor Harrell. Welcome to Somali community. This is Mayor Harrell's district when he was in the Seattle Council. So he is home. And I am home because when I came in this area, I stayed like 10 blocks from here. So I feel that I'm home. It's really an honor to have two mayors. One thing is that I learned in politics is that you put your money where your mouth is. And one of the scariest things for a politician is actually time. So he take his time to come here, that because he cares you and we care you. waxaan rabaa marka inaan ii sheego anigu Mayor Harrell markuu councilka ku jiray wuxuu districtan buu council member u ahaa. marka anigu magaaladan soo degana xaafad halkaan oo dhow baan degay. marka labadayaduba horta waxaan joognaa gurigayagii, waxaan u nimid dadkayagii baatiin. waxaan ogaaday waxyaalaha ugu qaalisan oo siyaasiyiintu ay mar walba laayihiin waa waqtiga. lacagta ma ahan, darajada ma ahan, runtii waa waqtiga. waxa halkaan ka garanaysaa imaantinka uu halkaan kugu yimid mayorku iyo aniguba waxa weeyaan waanu idin jecelnahay. dadkayagii baa tihiin, dadka aanu matelnaa tihiin. waxaad qabtaan oo dheef iyo dhibana inaan idinla qaybsanno baanu rabnaa oo aan ogaano. ma fahanti? marka waxaan rabaa anaad ogaataan. And I will say this in English, this is not campaign event, this is mayor meeting his community. Those who have elected him 2009, right? 2009. So, and I work his campaign. So, we talked to Sarah, who is doing an amazing job. I mean, really amazing job for the last 30 years for this community, a pillar of our communities. First, assalamu alaikum. My roommate in college was Somali, one of the first Somali people to come here to Seattle. The only words I remember he would say to me is Skauden, and I'd say Nabat. That's all I know. His name was Rashid Mohammed. He was known as Piccolo. Some of you know Piccolo. So he and his wife Nancy became lifelong friends with me, and I was with him to the very end, visiting him in the hospital. For those that do not know me, my father is a black American. My mother was a Japanese American. That puts me right in the middle. What I learned from my good friend Rashid Mohammed and what I learned from my mother and father is very simple. It's how I try to lead this city. Much like Mayor Mohammed Igal,
the first priority is always to keep you safe. For him to lead SeaTac as a mayor, he had to prove to everyone that you have to be safe from gun violence. And I'm concerned about your children because we are losing too many of our children to the streets to gun violence. Under my administration, if your kids or grandkids go to Seattle public schools like Rainier Beach or Franklin or Cleveland, if they finish school, they can go to college 2 years for free because I want them to be able to succeed. I want to talk about housing for a minute. I recently announced millions and millions of dollars for rental assistance because I know how expensive it is to live in the city. So I have enough in my budget to build over 3,000 new homes and to keep 9,000 people in their homes to prevent them from being homeless. So I was born here in Seattle. I've lived in 98118, our zip code, for over 50 years. waxaan konton sano oo nolosheeda ka mid ah ku noolaa sibkoorkan aad degantihiin oo ah 98118 for 50 years. My wife and I have 3 children who were raised here. caruurtaydu waxay ku dhalatay halka aniga xaaskayga. So I want you to see me as part of your community. I'm not going far. I'm here with you and hopefully be with you in the next several years. waxaan rabaa inaan idiin sheego anigu saasaan halkan ugu dhashay saasaan halkan ugu koray saasaan halkan xaas iyo caruur aan ku dhalay meelna uguma socdo waxaan rabaa inaad ogaataan anigu idinka ka mid ah. And I have to tell you, thank you. You have to vote. You have to vote. That is very, very important. If your kids can vote, if your neighbors could vote, we have to vote. That's how we keep people like Muhammad in office and keep people like me in office for you. So don't throw your ballots away. We have to vote. I'm finished. wuxuu yiri waxaan rabaa inaan idiin sheego say waxaas u dhacdo ma fahanti oo maxamed lagu doortay macnaheedu nin Soomaaliya oo ay saxeen in la doorto waa inaad idinku vote gareysaan waa inaad codeysaan dad Mareykan ah tihiin warqadaha ii soo dhacaya warqada markuu ku soo dhacdo codee celi markaas waxa la hadashaa saaxiibada faraadka kala la hadal magaciisa waxa tiraahdo codeeyo codku waa awoodda dawladnimadu waa inta. Thank you. So